Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhammaan ardayda sharafta leh soo dhawaada waa maalin kale qurux badan iyo cashar aad iyo aad wanaagsan waxaan rajeynaya dhammaantiin inaa caafimaad wada qabtaan alxamdulilah sidoo kale halkan maanta waxaa inoogu hayaa cashar aad iyo aad u qiimo badan ciwaankiisuna uu yahay opposite words in English baan af Soomaali ku baranaynaa insha Allah haddii la idmo opposite words waxaa la yiraahdaa ereyada macna ahaan iska soo horjeedaan so insha Allah ereyooyin wanaagsan ma halkan inoogu hayaa sidoo kale jumlo ayaan dhisi doonaa so insha Allah jumlooyinka sidaan u dhisayo ilaa eega sidoo kale dhawaaqana aad buu muhiim u yahay kadib jumlooyinkaas isku day in markaas xagga commentiga aad ku soo qori kartaan sababtoo ah listening skillskiina baa horumaraya wixii dhagaha aad ka maqashay in aad qortid okay you will improve your listening skills so waxyaabaha luqadda lagu barto waa listening okay yani inaad wax dhageysatid waxa dhageysatidna aad isku dayid inaad qori kartid okay hagaag okay ereyga ugu horeeya halkaan aan ku xisano waxa uu leeyahay true okay true ereyga macnahan ka soo horjeedo waxa la yiraahdaa false true waa run okay false na waa been true waa run false na waa been okay sentence marka aan gelino you can say whatever you are saying is it true or false whatever you are saying is it true or false yani waxa aad sheegayso ma runba mise waa been okay yeah, that's good ereyga xigo cry okay waxa ka soo horjeedo laugh cry waa ohin laugh na waa qosol okay cry ohin laugh qosol so hal jumla oo sameynayna sidoo kale waxaan dhihi karnaa are you crying or you are laughing adiga miyaad oynaysaa mise waad qoslaysaa are you crying or you are laughing mise waad qoslaysaa okay that's good ereyga xigo unity waxa ka soo horjeedo division unity waxaa la yiraahdaa midnimo yani in la isku duuban yahay divisionna kala qaybsanaan dadka inay kala fadhisan yihiin aysan inaysan mid ahayn okay yeah so you can say it is good that we are united then we divide ourselves yani waxa aad u wanaagsan it is good that we are united yani verb ahaan waa unity waa noun okay yeah, it is good that we are united waxa aad u wanaagsan inaan mid nahay then we divide ourselves inta aan iskala qaybin lahayn oo aan dadku ay kala fadhisanaan lahaayeen okay that's good ereyga xigo hunger waxa ka soo horjeedo thirst hunger waa gaajo thirstna waa on okay yeah hunger gaajo thirst on so we can say in jumla ahaan gelin waxaan dhihi karnaa do you feel more hunger or you feel more thirst adiga badanaa ma gaajo zaid aad dareentaa mise on zaid do you feel more hunger or thirst okay jumlada sidoo kale iyadana soo qora erey xigo funny waa qosol ama shactaro waxa ka soo horjeedo serious yani qofka inuu serious yahay uusan qosol wax saas uusan u jeedin serious ayaa la yiraahdaa okay yeah are we together so you can say I'm so funny sometimes but I also work in a serious way okay yeah sometimes I'm funny and also sometimes I'm serious saasna waa dhihi karta you can say sometimes I'm funny marmarka qaarkood waa shactaro badanahay but also sometimes I'm serious marmarka qaarna serious ayaan ahay yani qosol iyo waxsaas yani shaqadeeda iyo wixii markaas baan serious ku ahay okay that's good erey xigo rare waxa ka soo horjeedo front rare waa qaybta dambe salahan kala gaariga qaybtiisa dambe rare ayaa la yiraahdaa frontna waa qaybta hore okay yeah rare front waa qaybta hore rare waa qaybta dambe so you can say check those things at the rear part of the car but if you will not find you can also check at the front part waxyaabahaas waxa ka egta gaariga dabadiisa qaybta dambe haddii aad ka weysana gaariga horaantiisa hore ka eg yeah check those things at the rear part of the car but if you will not find you can check it at the front part so jumladaas ina si fiican u dhegeysanaysan rajaynaa okay
that's good. hadduu ku dhaafo muuqaalka jooji si markaas dib ugu soo ceshato aad u fahanto. Okay, ereyga xigo boring. Waxaa kasoo horjeedo exciting. boring waa wax caajis badan, yani I'm so bored, waxaa waa yani caajis kugu ridaa, boring la yirahdaa. exciting waa wax xiiso badan. Okay, exciting waa wax xiiso badan oo yani nashaadka dhiga, wax ku xiiso gelina exciting la yirahdaa. So you can say, hey, that story that you are telling me is so boring, let me tell you an exciting one. waxaad dhihi kartaa, hey, that story that you are telling me is so boring, but I can tell you an exciting one. Okay, sheekada ay sheegayso waa sheeka boring ah oo caajis meelna, anaa mid xiiso badan kuu sheegaya. Okay, that's good. ereyga xigo waa dusk. waxaa kasoo horjeedo down. Okay, dusk waa waqtiga galabgaabka oo qoraxda dhacaysa, waxa la yiraahdaa dusk la yiraahdaa. down waa waqtiga aroortii hore qoraxda ay soo baxayso, waxa la yiraahdaa down ayaa la yiraahdaa. So you can say, let's meet tomorrow at dusk time, but also you can check maybe if you're free at dawn. waxaan kulmi karnaa berito markay galabgaab ay tahay, haddii markaas adiga waqti ay heli weysana at dawn waan kulmi karnaa. Okay, aroortii hore. ereyga xigo poor. waxaa kasoo horjeeda rich. poor waa faqiir, richna waa taajirnimo. Okay, so you can say, poor people are so kind than rich people. Okay, dadka faqiiriinta ah way ka naxariis badan yihiin dadka taajiriinta ah. poor people are kind compared to the rich people. Okay, yani dadka faqiiriinta ah waa ay ka naxariis badan yihiin kuwa taajiriinta ah. Okay, qaybta xigta aan tagno, ancient. si ayada soo akhriya sha'alo. ancient waxaa kasoo horjeedo modern. Okay, ancient waxaa la yiraahdaa wax yani gaboobay waqtiga hore, waxa la ancient. old waa okay, ancient waa wax hore, waqti hore ama wax hore. modern waa wax hadda markaas la taagan yahay cusub. You can say, the clothes that you're wearing are more of ancient, and the one I'm wearing are more of modern. Okay, the clothes that you are wearing are more of ancient, but mine are more of modern. yani dharka aa xiran tahay waa dhar waagi hore la xiran jiray, dhar gaboobin waa waagi hore la xiran jiray, anna dharka hadda waayahan cusub oo socdaan oo modernka ah baan sitaa. Okay, that's good. ereyga xigo occupied. ereyga saas u dhawaaqsa, dhawaaqa muhiim waay. users ay ahaan loo akhriya occupied. waxaa kasoo horjeedo vacant. occupied waa wax la buuxiyey ama buuxsamay, meel haddii la buuxiyo shaqo oo kale oo boosas ay badnaayeen, laakiin markii shaqada booska la buuxiyo occupied waa. vacantna waa bannaan. Okay, wax buuxo, vacant waa wax bannaan. Okay, waxaad dhihi kartaa, is there a chance which is vacant? No, all chances are occupied. Okay, waxaad dhihi kartaa yani fursad bannaan may jirtaa, meel shaqa ka codsanaysa. is there any chance or maybe any vacancy in your company? yani meel shaqadiina ka bannaan may jirtaa. Okay, markaas waxaa ku jawab kartaa, you can say, there are no chances now, all of the positions are occupied. yani meel walba way buuxaan. Okay, yani wax bannaan ma lahan. Okay, that's good. ereyga xigo finish waa dhamaystir. begin aa kasoo horjeeda, begin waa bilaaw. Okay, begin. you can say jumla ahaan marka waxaad dhihi kartaa, I will finish my writings before you begin yours. Okay, ana qoraalkayga waxa aan bogayaa inta weli adig kaaga aada bilaabin. Okay, I will finish my writing before you begin yours, inta adig qoraalkaaga aadan bilaabin. Okay, ereyga xigo difficult. waxaa kasoo horjeedo easy. difficult waa wax adag, easyna waa wax fudud. So you can say, the exam was a little bit difficult, but some of the questions were easy. The exam was a little bit difficult, but some of the questions were easy. yani imtixaanka yani xoogaa u adkaa, laakiin su-aalaha kuwa qaar baa fududaayeen. Okay, that's good. ereyga xigo lower. waxaa kasoo horjeedo raise. lower
waa ina hoos u dhigto, raise na waa ina kor u qaado. Okay, yeah, you can say lower that rope, yani xarigaas hoos u soo dhig. And you can also say raise that rope, xarigaas kor u qaad. Okay, yeah, lower hoos u dhig, raise na kor u qaad. ereyga xigo present waxaa ka soo horjeeda past. Present oo waqti xaadirka hadda la joogo. Okay, yani pastna oo waqti la soo dhaafay. Okay, yeah. Okay, ereyga xigo alive waxaa ka soo horjeedo dead ayaa kasoo alive, yani waa in qof uu nool yahay, deadna waa qof inuu dhintay. So you can say is your father alive or dead? Aabaha ma nool yahay mise wuu dhintay? Is your father alive or dead? ereyga xigo active waxaa ka soo horjeedo lazy. Okay, active waa firfircooni, lazyna yani waa caajis, qof caajis badan waxaa la yiraahdaa lazy la yiraahdaa. Okay, yani qof jiitamayo waana firfircoonina waxaa la yiraahdaa lazy la yiraahdaa. So you can say I'm more active but you are so lazy. Aniga aad baa u firfircoon laakiin adiga qof lazy ah tahay, qof aan firfircoonayn. ereyga ugu dambeeyo courage waa geesinimo. Geesinimo waxaa ka soo horjeeda coward waa fulinimo. Okay, courage geesinimo, coward fulinimo. You can say it's good that you be courageous than coward. Okay, waxaa aad u wanaagsan in aad geesi tahay inta aad fulin noqon lahayd. Courage geesinimo, cowardna fulinimo. So insha Allah waxaan rajaynaa si fiican dhawaaqood u dhegeysaneysaan jumlooyinkaasi aan afka ka sheegayna. Isku day listening-kiina idinku cabirayo inaad soo qori kartaan. Qof walbana insha Allah waa ka sixi doona hadduu Allahna. Okay, that's good. dhawaaqa ay sidoo kale waxaan rajaynaa si fiican inaad u dhegeysateen. Okay, hagaag. So insha Allah muuqaalka inta ka kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Like insha Allah yaa la iloobina muuqaalkana si share gareeya. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.